السلام عليكم أصحابتي kusoo dhawaada youtube channelkayga si bari English with Nadia. Maanta waxaan dhiganaynaa conversation ama wada sheekaysi. Okay, let's start. Hadeer bilaaba. Hello, am I talking to Asha? Hello, am I talking to Asha? Waxay la macno tahay hello maxaasha mise maxaashaan la hadlaya qofkani maxaasha. Hello, may I ask who is speaking? Waxay tidhi hello, can I ask who's speaking? Yani hello weydiin waayo qofkani way la macno tahay. Can I ask ma ku weydiin karaa who's speaking ee bay ila hadlayso. It's me, Layla, from college, remember? waxay tiri it is me Layla. It's me waxa weeyaan waa aniga. Waa Layla from college, remember? Waa Laylada college-ka waad dhigan jirteen ama kuriyada. Remember? Xasuuso. Hey, Layla, how are you? It has been much a long time. markaa way garatay. Hey, bay tiri Layla, how are you? Hey, Layla iska waran. It has been much a long time. Waxay ahayd yani muddo dheer ama waqti dheer baa kasi wari. I'm doing good. Yes, it was 4 years ago. I got your contact number from Ali. Do you remember him? Waxay tiri I am doing good waan fiicanahay. Yes, it was 4 years ago. Waxay ahayd 4 sano ka hor. I got your contact number. Waxaan ka helay numberkaaga Ali. Do you remember him? Isaga ma xasuusata him waa isaga. Got to know how he heditaan qofaa kuga odhan karaa where did you get my number? Hagaad ka heshay numberkayga soo odhanaysaa I got your number. Qofkaas baan ka helay. Oh yeah, I remember him. Wasn't he the one who topped our engineering batch last year? Oh yeah, bay tidhi I remember him. Waan xasuustaa. Wasn't he miyaanu ahayn the one key who topped our engineer batch last night? Yani kii inugu sareeyey difaacadeena engineerka sanadkii ugu dambeeyey. Topped means yani sarreyn top bay ka timid. Yes, that's him. He's engineer. He working a big company. Waxay tidhi yes, that's him. Waa isaga he's engineer. Waa engineer. He working a big company. Wuxuu ka shaqeeyaa shirkad weyn. Conversationkan uu dheeraaday asxaabi markaa next lesson maalinta kale ka dhigi doonaa. Because don't forget to subscribe. Thank you.